dowladda Kenya ayaa xaqiijisay inay dowladda Mareykanka ka iibsatay 6 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaan helicopterka. War ka soo baxay wasaaradda difaaca Kenya ayaa lagu sheegay in 6 diyaaradood oo ah nooca Chapter ay dhawaan soo gaarayaan dalkaasi Kenya. Leyna Tilton ah madaxa fulinta shirkadda samaysa diyaaradaha ayaa sheegay in sidoo kale dowladda Kenya ay u tababarayaan duuliyayaashii kacayn lahaa diyaaradahaasi iyo shaqaalihii kale ee ka howlgeli lahaa. Diyaaradahan ayay Kenya sheegtay inay u adeegsanayso dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab. Saraakiil u hadashay wasaaradda gaashaandhigga dalka Kenya ayaa sheegay inay diyaaradaha saldhig looga dhigayo garoonka ciidanka cirka ee Kenya ee loo yaqaan Moi oo ku yaala caasimadda labaad ee dalka Kenya ee Mombasa. Dowladda Kenya ayaa horay u sheegtay inay iibsatay 12 diyaaradood kana iibsatay isla Mareykanka hase yeeshee aynan weli soo gaadhin garoomada diyaaradaha ee waddankaas. Dowladda Kenya ayaa 10kii sano ee u dambeysay waxay iska dhisaysay dhinaca difaaca cirka iyadoona aad u qalabeynaysay ciidamadeeda kala duwan. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo dowladda Kenya ay Soomaaliya ku haysato qaybo ka mid ah xeebaha dalkeena Soomaaliya. Sidoo kale Kenya ayay ciidamo ka joogaan koonfurta Soomaaliya waxayna ka howlgalaan gobolada Jubbooyin. Ciidamadaas oo qayb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.